إن الحمد لله نحمده ونستعينه waxaan rabaa dhowr arrimood inaan ka hadlo ku saabsan masiirka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beesha Dabare oo maalmahan hawlaheedii aan ku jiray waxaan rabaa halka inaan digniin u jeediyo ama aan ugu digo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya جواري أو وقت أنا حاضر كبرلمان كحلكيسة دمادي قدوميهيس أنك هدانا هاي باش الدبره سيدي وان كدقني مر لبان وان حان رباينا نديقو وان وشيقو دمان صومالي ميل والباقي جوبتو سيدي إنو سنهين وغاس دبره نوصن متلي كريم سدحنين ديبوتي ayaa waxay ku haysaa magaalada Muqdisho oo xildhibaanada Dabaraha waqtigan xaadirka ah u matala kamid ah saddexdaas ruux baa meesha ninkan ku haysto wuxuuna degan yahay guriga adeerkay Cabdi Macallin oo ah xildhibaanada waqtigooda dhamaaday aana soo noqosho lahayn ayuu la nool yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaan rabaa inaan u sheego ha isu kalifin beesha Dabare inay kula dagaalanto ama beesha Dabare inay ku biirto maamulka muxuu ahaa jubbooyinka inay ku biirto sababtoo maadaama gobol weyn beeshu ay ku leedahay jubbada dhexe ee Bu'aale ay degan tahay runtii aniga ummadda Soomaali general ahaan baan uga hadlaa waxa ay u kalifay inaan arrimahan aan farageliyo maalmahan waxaa socday dad jahwareeray oo ku taagan inaa wajadna aabayeeshani baa yani muxuu ahaa ka soo dhawaay hore markii nabiyeesha markii rususha la diro gaaladii ay u tagaan waxay dhihi jireen gaaladu markay tawxiidkay u sheegaan ayaa waxay dhihi jireen inaa wajadna aabaana sanamyada iyo waxaan aawadayno iyo waxaan oo dhan iyo dadkan waxaan sameynayno waxaan ka soo gaarnay ma arkino muxuu ahaa awowyeeshaani barnaamijkaas asaga beesha Dabare waa diiday Dabare laga bilaabo maantayto waxa ugaas u ah Aadan Cabdiraxmaan Aadan Biid Aadan Cabdiraxmaan Cusmaan Aadan Biid loo yaqaano wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxaan rabaa inaan ku wargeliyo wasaaradda amniga inaan ku wargeliyo xafiiska ra'iisul wasaaraha inaan ku wargeliyo xafiiska Maxamed Ismaan Jawaari inaan ku wargeliyo xafiiska Xasan Sheekh Maxamuud inaan ku wargeliyo golaha dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ama hogaamiyaasha dhaqanka inaan ku wargeliyo beeshu waxay ugaas u dooratay Aadan Cabdiraxmaan Ismaan Aadan Biid loo yaqaano oo nin waqtigan xaadirka marxaladda jirtana la jaan qaadi karo waa nin yani muxuu ahaa maantayto la isdhihi karo mugdiga beesha ku jirto inuu ka bixin karo beeshu Aadan Biid bay dooratay masiirkeediina way ka tashatay سيدي حاج محمد نور iyo aadan deero beeshu waxay u aqoonsan tahay falaaga al-shabaab oo documentary waaweyn laga hayo aaminkii aan u qabnay beeshu way ka dhamaaday in mar dambe nin al-shabaab ay ugaas ka dhigato masiirkeeda uu ka hadlo bulshada Soomaaliyeed indhaha ha furto dhagahana waxa ka maqasho Dabare ugaaskiisa Aadan Cabdiraxmaan Aadan Biid baa yiraahdaa magaalada Muqdisho jooga waa ugaaska beesha Dabare insha Allah ta'ala cid allaale cidii beeshan wixii hadda ka dambeeyay masiirkeeda u baahan tahay ugaaskaas kala xariiraysa waa inay ogaataa Soomaali meel walbo ay joogto waa inay ku baraarugtaa waxaan rabaa dhanka kale inaan ka hadlo siday asagoo shabaab asigoo hogaamiye weyn oo al-shabaab asiga iska dhigay xukunkan waxaan soo gelinaynaa hadduu Ilaahay idmo khudbooyinkiisii waqtigii uu shabaabka ahaa waxaan soo gelinaynaa meelihii mu'askaradii uu ku jiray intaas waa idin soo gudbinaynaa hadduu Ilaahay idmo
marka Cabdi Macalin iyo Xasan Macalin iyo Xuseen Badni harraali ahaadaan bulshadan wax badan bay magaceedii iyo maarkino muxuu ahaa mansabkeeda ay wax ku raadiyeen cadaaladdan inaan ka hadalna dantan ugu kaliftay aniga xildoon ma ihi ugaas doon ma ihi dawladna nin wasiir iyo maarkino xildhibaannimo raadinay ma ihi musharax ummadda Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya baan ahay Soomaaliya ku baraarugto ugaaska dabare aadan Cabdiraxmaan aadan biid insha Allah ta'ala habeen dambe ayaan soo gelin doonaa waraysigiisa faahfaahsan website kacdoonnews.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.